maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigay Daawud Faarax oo kamid ahaa dhalinyarada si weyn uga qayb qaadatay nadiifinta barxadda Garowe kadib munaasabada maalinkaas 18 May ee halkaas lagu qabtay munaasabadaasi oo lagu xusayay maalinta Somaliland ayaa sanadkan si weyn loogu qabtay magaalooyinka Garowe iyo sidoo kale qaybo kamid ah deegaanada maamulka Puntland taas oo dhalisay falcelin iyo sidoo kale doodo xoogan qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka maamulka Puntland iyo sidoo kale golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku tilmaamay inuu ka rajo dhigay hogaanka siyaasadda Soomaaliya isla markaana hadda isku daaweynayo maamul gooni isu taaga ku dhawaaqay ee Somaliland eedeymahan ayaa ku soo aadaya xilli dood xoogan ay ka taagan tahay xiriirka siyaasadeed ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland gaar ahaan deegaanada ay labada dhinac isku hayaan Daawud Faarax ayaa waxa uu kamid ahaa dhalinyaradii sida weyn uga hortimid in Garowe lagu dhigo xuska maalinkaas 18 May ee Somaliland iyadoona warar kala duwan ay ka soo baxayaan sababta rasmiga ah ee loo qabtay dad badan oo ku nool Puntland ayaa arrintan ku tilmaamay mid si kordhin karta xiisadda siyaasadeed iyo kala aragtiduwanaanta bulshada dhexdeeda ah wararka laga helayo Garowe ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay sare u qaadeen feejignaanta magaalada kadib markii baraha bulshada ay ku faafeen doodo kulul ku saabsan munaasabadaas 18 May iyo dadka ka falceliyay qaar kamid ah shacabka ayaa taageeray tallaabada maamulka halka kuwa kalena ay ku tilmaameen caburin karin ah xorriyadda aragtida siyaasadeed sidoo kale siyaasiyiinta ayaa waxa ay sheegayaan in khilaafka u dhaxeeya maamulka Puntland iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya uu gaaray marxalad cusub xilli ay labada dhinac isku mandhaafsan yihiin arrimo badan oo ay kamid yihiin doorashooyinka awood qaybsiga iyo xiriirka ay Puntland la leedahay Somaliland xariga Daawud Faarax ayaa noqday arrin si weyn looga falceliyay gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland iyadoo dadka qaar ay u arkaan digniin loo dirayo cid kasta oo ka hortimaada dabaaldega 18 May in lagu qabto gudaha maamulka Puntland ayaa waxay dhawaan erga u dirtay gudaha maamulka Somaliland si ay uga qayb galaan xuska maalinka 18 May ee Somaliland iyadoo baraha bulshada dhalicin aad xoogan looga jeediyay hogaanka maamulka Puntland iyadoo wali wax jawaab rasmi ah aysan ka bixin maamulkaasi xariga shakhsigan dhalinyarada ah Daawud Faarax ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maamulka Puntland ay dul hoganayaan fadeexado taasi oo ka dhalatay xuska maalinka Somaliland ee 18 May ee lagu qabtay gudaha Garowe